Assalaamu calaykum saaxiibayaal soo dhawaada maantay waxaan sharixi doonaa filim cusub kaasoo loo magacaabo Sweet Home waana kana filimkii daawada iskana taxadara. Ugu horeyn halkan ayuu ka bilaabanayaa filimka. Wiilkan waxaa lagu magacaabaa Sweet, wuxuu la kulmayaa nin shaqaale ah ayuu la kulmayaa kadib oo ay sheekaysanayaan. Ninkii Sweet hana wuu iska baxayaa, gurigiisa ayuu tagayaa. Wiilkan waa wiil nolosha ka dhacsan, wuxuu rabaa inuu isdilo oo nolosha uu isdhaafiyo. wiilka shaqaale ahana wuu iska baxayaa, hawshiisa ayuu soo gudanayaa, mudanihiisa ayuu soo qancinayaa. gabar meesha kala shaqeysa ayaa waxay keenaysaa gasacad ku jira malaay. malayguna wuu samaysan yahay. mar allaala markuu malayga u furo oo ooyo ayaa malaygu karkiisa qaadaya sunta, kadibna sankiisa dhiig fara badan ayaa ka baxaya oo halkaas ay ku saaqmayaa. kadibna ninkii Sweet ahaa meeshan ayuu iska taagan yahay, isagu waxaaba meesha kalama socdo. wuxuu rabaa inuu nolosha isdhaafiyo, kaliya ka go'an ninkan. markuu rabo nolosha isdhaafiyo oo taakada ugu horey uu qaado maago ayuu garabkiisa wuxuu ka arkayaa gabar ayuu ka arkayaa. gabadhii ayuu cabaar ku mashquulayaa sida ay is leedahay, sida ay mataqaanaa jawi ugu jirto oo faraxsan tahay ayuu arkayaa. kadib wuu la yaabayaa farxadda ay ku jirto iyo murugta uu ku jiro ayuu la yaaban yahay oo isbarbar dhigayaa. gabadhi markay dhinaca soo aado cabaar la sheegaysanayaa, kadib isagoo murugaysan ayuu gurigiisa ka soo laabanayaa. wuxuu arkayaa iridda waxa u taagan ninkii waardiyaha oo sanka dhiig ka daadanaya oo malaay loo sameeyay. kadib uu u imaanayaa, maxaa kaa jira uu leeyahay. ninkii niyadda ayuu dejinayaa. ninkii Sweet ahana markay wada hadlaan waa iska baxayaa, waa seexanayaa. laakiin ninka shaqaalaha abaalmarin ayuu wuxuu u siinayaa xabad faanta ah, wuxuu leeyahay cab iska seex ayuu leeyahay. kadib ninka Sweet aha waa u seexanayaa. ninkii Sweet aha wuu iska seexanayaa, balse ninkii shaqaale ahaa banaanka ayuu taagan yahay, waardiye ayuu ka yahay guriga. halkan gabadhii halkan ayay joogtaa, fiyooliin ayay isku tumanaysaa oo halkan ayay jawi ku jirtaa. kadib subax markii la gaaro gabadhii way soo baxaysaa, waxay soo aadaysaa dhankaasi shaqada ayay soo aadaysaa. marka asxaabtii ay la kulanto waxay u tegaysaa mudanaheedii si wax u jiraan iyo ninkii Sweet aha oo isdil rabay ayay uga sheekeynaysaa. laakiin se arrinta wuu la yaabayaa ninka mudanaha. ninkan waxaa lagu magacaabaa Jack ayaa lagu magacaabaa, filimka ayuu qayb ka yahay. laakiinse ninkan wuxuu leeyahay cadow fara badan ayuu leeyahay. dhanka kalena ciladiisa waa balwadda ayuu aad isticmaalaa. laakiinse cadowgiisu faraha ayay ka bataan, mid walba uu qabtana wuxuu ciqaabaa qaab aan caqli kala ahayn ayuu ciqaabaa oo nolosha ayuu dhaafsiyaa. midkii uu qabto si xun ayuu ciqaabaa. dhanka kale ninkii Sweet ahaa nolosha ayuu ka dhacsan yahay, waxuu qabta ma yaqaano. isagoo gurigiisa hortiisa fadhiya ayaa waxaa usoo dhacaya masajkii ayuu cabaar akhrinayaa. kadib masajkii ayuu ka jawaabayaa. kadib wuxuu aadayaa dhankaasi kombiyuutarka dul fariisanayaa. wuxuu ogaanayaa in magaaladan ay joogaan horor fara badan ayuu ogaanayaa. balse ninkii Sweet ahaa oo baqayaa, wuxuu isku dayayaa inuu iska seexdo oo sariirtiisa u aado, balse fariimihii ayaa ka hari waayey. shacab fara badan ayaa fariimo usoo diraya. sariirtiisa soo dul jiifa ayaa waxa kusoo dhacaysa inuu shacabkiisa u gargaaro oo dadka horarka uu ka celiyo. kadib wuxuu soo aadayaa banaanka markuu yimaado wuxuu arkayaa dhiig fara badan ayuu arkayaa, wuu isku naxayaa. balse ninkii Sweet ahaa arrinta wuu dul qaadan weynayaa. isagoo cararaya ayuu ku laabanayaa sariirtiisa, ayuu ku laabanayaa jiifkiisii ayuu iskaga laabanayaa. mar alla markuu jiif waayo ayaa iridda la soo gargaraacayaa. markii iridda la soo gargaraaco wuxuu isleeyahay fiir waa qofka iridda taagan, balse gabar ayaa iridda taagan. waxay leedahay iridda iga fur ayay leedahay. isaguna iridda ka furi maayo, wuu ka baqayaa. booliska ayuu wacayaa, wuxuu leeyahay gabaraa banaanka ii taagan ee iga soo gaara aysan cunayna. isaguna wuxuu leeyahay booliska ayaan wacayaa, waa lagu badbaadinayaa aamus. balse ma ogayna gabadhu bahal tahay, isagu ilaa hadda lama socdo. laakiin ninkii Sweet ahaa waa uu yaaban yahay, booliska uu sugi waayey. banaanka ayuu qolka uga soo cararay, wuxuu soo aaday dhankaasi Jack ayuu u yimid. laakiin Jack wuxuu leeyahay dhammaantii shaqaalaha waxa soo aadin dhankaasi shaqada soo aada ayuu leeyahay. balse shaqaalaha dhan boorsooyinka waxay soo qaadayaan, waxay soo aadayaan dhankaasi mataqaanaa meesha shaqada ayay leef soo aadayaan. markii meesha shaqada ay yimaadaan ayagoo waxba ogeyn ayaa iriddu isxiraysaa. dhammaantood way qalqalayaan, mid walba wuxuu isleeyahay wuxuu sameyntii qowaayo ayuu wuxuu leeyahay booliska ayaan wacayaa. mid walba oo boolis wici karaa lamar booliska ayaa wuu wacayaa dhammaantood. balse nin gaaban ayaa meesha ka shaqeeya, wuxuu leeyahay aniga ayaan badbaadinaya jooga. laaleenka iyo xaggiisa ayuu aadayaa. wuxuu gaabku isku dayayaa inuu booliska waco laaleenka, balse laaleenkii waa u shaqeywanayaa. wuxuu aadayaa dhankaasi meesha mataqaanaa baalka shabaqa laga kacsho ayuu aadayaa. mar alla markuu jiraa shabaq kicina, shabaqii ulug kusii ceeriyaa oo shabaqii wuu soo xirmayaa. shacabku way yaaban yihiin, waxay leeyihiin shabaqa korkiic ayuu leeyahay, shabaqii wuu kici weynayaa. hortooda waxaa soo istaagaya ninkii horarka ahaa ayaa soo istaagaya. iyaga dhan inay caddaynayaan, balse horarka wuxuu la soo baxayaa awoodiisii iyo wuxuu mataqaanaa iyaga dhan uu cuno ayuu ku talagelayaa. banaanka ayuu soo baxayaa horarkii, iyaga dhan mid ayuu u dilayaa. balse wiil ka mid ah asxaabta ayaa ka mid ah, wuxuu soo qaadanayaa bahal mataqaanaa wax lagu buufiyo. kadib horarka ayuu ku buufinayaa. horarkuna markii wax lagu buufiyo waa uu istaagayaa, awood ma yeelanayo.
asxaabta kalena wuxuu leeyahay intaan baalkan ka mashquulinayo idinkuna carara, balse asaga laftirkiisii ayuu kala tuurayaa. Markuu kala tuuro iridda ayuu furaya, wuxuu leeyahay soo baxa dhammaantiin kasoo carara, gabadha ugu dambeysa xataa wuu ka badbaadinaya. Laakiin horkii halkaas ayuu ku ekaanayaa, carabka ayuu isleeyahay meesha shabaqa kasoo dhex bixi, carabkina kasoo dhex bixi weynayaa, halkaas horka u adkaanaysaa. Filimkina halkan ayuu ku egyahay. Asxaabta intaan bixin muuqaalkan like saara, wixii aragti ama fikradana nagula soo wadaaga qaybta commentiga. Insha Allah muuqaalkan ay muuqaalka xigeenno balna waa sidaas iyo nabadgelyo.